anigoo ah garaad cabdirashiid garaad ismaaciil shirkeennan jaraa'id aniga xaggayga ayuu ka yimi anaa codsaday salaan iyo soo dhaweyn baan u dirayaa dadka igala soo qayb galay iyo dadka dhegaysanayaba ama muuqaal ahaan u eegaya waxaana doonayaa in aan idiin soo gudbiyo waxyaalihii dhacay oo duruuftu ay keenayso maadaama hadallo badan ay baxayaan in aan idinka siiyo warka xaqaa'iqa ah ee dhabta ah waad salaamantihiin intaa ka bacdi waxa weeyaan waad ogtihiinoo haddii aanu nahay beesha jaamac siyaad waktigii la sameynayay saldanadda waxaa dhex maray khilaafkaasoo ku salaysnaa oo wax kale aanan dabada ku hayn ee ahaa mid siyaasadeed iyo iska soo horjeed sida maantaba ka taagan dhulka sool iyo sanaag iyo cayn la yado ama gobolladaas bariga wixiina lagu eedeynayana waad ogeydeen oo waad garanayseen wax waliba dhaqan bay leeyihiin wax waliba siday tahay waddaday tahay baa loo maraa taas ayaa keentay in dhaqankii iyo waddadii loo mari jiray inta laga baydho sidii guddoomiyeyaal ama baneemistiro ama madaxweyneyaal la dooranayo in dhaqaalo badan lagu bixiyo markaana laysdhinac celiyo oo hawlo badana ay meeshaa ka dhacaan runtii way dhacday annagu taayada ayaanu ka marray yagoori baanu tagnay halkay ku aasaasantay geedkii gobka ahaa baanu tagnay cid allaalay ciddii doontaa ha nala socoto ummad badan waxaanu ka marray sidii ay ahayd iyada oo nalagula dagaalamayo arrin markaa dadkii dee diidaya ay xaq u lahaayeen laakiin aanay meesha markaa ku jirin in ilaa dhaqanka la socdo laakiin waa wax bilow ah oo nin walba hadhowto lagu dhiiri gelinayo weeye maaha wax uguba ma noqon doontahay markii sidaasi ay dhacday waxaa jiray inan yar oo 6 qofii ay ka waaweyn yihiin xagga ragga oo runtaan idii sheegayaa weliba raggayaga 8 ah ee anigu aan ugu weynahay waa ninka keliya aan isku baxdanahay weeye ninka noogu yar oo leeyahay cali garaad ismaaciil ayaa wuxuu ku yidhi war miyaadan arkayn ninkan keligii ninka inoogu weyn ee hawsha leh ee odagu inagala dardaar war miyaadan garee arkayn inaad keligii ninka noogu yar baa ku yidhi kitaab jaamaca iyo dhaar iyo intaasuu maray waa kitaabka ilaahay kuma aanu joogin way dhacday wax dhibaato ama laha annagu taayadaan ka marray hawluu galay wuxuu ka bilaabay dhibaatada iyo mushaakilka jaamac siyaad dhexdii marka laga soo gudbo dhuubahante iyo maxamuud garaad wuxuu ka bilaabay jaamac siyaad waad ogtihiin weli nin tola haantu doonaha ka soo jeeday dhaqanka kuma aanay jirin nin tagadiisa haysto waad u timi inaad nin kale uga qaado ninkuu ku bilaabay waad garanaysaa waa wasiirkii cabdilaahi cali xirsi ayuu ahaa oo uu ku bedelay marka jaamac siyaad hoos looga dhaco tagadaa wuxuu ka qaaday nin maxamuud cali ah wuxuu geeyey nin aad taqaanin xasan faarax xasan geerish la yidhaahdo wuxuuna markaa ku yidhi madaxweynihii halkaa haystay waan ku imaanayaa taasoo ay ka mid tahay beento xaaraana arrintaasi waxay rafanaysay muddo wuu ka gudbay doonlu wuxuu kaga daba tegey muqdisho oo odagayagii ah oo aan cid allaalay iyo cid ninkaa agtiisa maraysaa aanay jirin waa dhaqan cusub oo uu dhexdayda ka bilaabay halkaana wuxuu ku waxeeyey hawshaasuu ku sameeyey oo nin buu keenay isaguna xildhibaan ah
arrin la yaab lay noqotay kuma joogin halka markii la waxaynayay tinaca doo madaxweyne ku-xigeenadii iyo hawshii lambar wanaagsan ka galo hawshiisu ay socoto ninka cusub haddana sidiisa kitaab u maray nin buu ka keenay New Zealand الآن الهيا كإلبان كوجينا وحوا الآمل كوسير كسميستنا وحوا الآمل كاسو كانت وكربحت وسود دولي هل كان الله كاني أين أغنى هاي ماشي أنجا نلقوها يستي يعني كتر السنين المملكة الصومالي لان وحما قالوا نقول نقطة ونصيرها كهذا إنه سعودنا اللي عبد الله حجامة وولي أبيشي محمد علي arrintaas fashilaad bay keentay iyo rag kale isagoo oo wada ragaanan halkan ka magacaabin waa sida la yiri weeye waxa xaqaa'iqa baa laga hadlaa taasi waa burbur inta aanu hawlahan geysan annaga dhexdeeda uu ku hayay waxa taa ka daran shacabkii ummadii dadkii priority-ga wuxuu ka helay iyo waxaan loo macmacay isirmaniga ah inuu daacad kula shaqeeyo dhulbahantii iyo ummadii doortay annagu waan oogay in aanu arrintaa iyada ah ka bixi karay annagu waan oogay in dhulbahanta isdagaaleynayo salaadiin iyo odayaal oo xaqdarrooyinka la gelayay ka mid ahay annagu waan oogay inaan taa lagu faa'iiday war ninka caqligiisu siin waayey haddaad intaa samaysay oo adiga sidaa lagugu doortay oo meel walba lagu geeyey oo 5 sannadood waxa aad ku dhex jirtay oo xumaan iyo samaan iyo cid iyo too kala firgin wax walba aad gashay waxna adiga gaar iyo haybad lagugu hayo ruu ka tirsan war wixii lagu haystay tii ka weynaa 15 sannadood aqliga u biyay ayaa idinkaga filan markii hore aad khaldantay waxaan idin sheegaya annaga faa'iideyno ahay oo waxay noogu ahay ummadda markii ugu dambeysay وطن أن كشكي باشا تاعسي الدحديسة سيدا ورير وين وبلادن وقالية وبيشو بيلها وقوة وين تيغن يعني هرمود كيا وليبا سياسة نوقع سنة سيدا وقوة بفتي يسجل لها اللاري وليبا وريري سيدا في عون صبوري بها كيف يربعنا حاجة كلا سعتي الشرطي وحيما عن قراني قفك بني آلك ونوران كرا ويحرقون كرا ولبسان كرا وحين كرا لكن عقل باللو بهاي وحنيدي شيء نكا إسقى جامع كراس معرض خلانا حيرو معنا لهاي وحنا قد حيا مترين كتاب ونومر ونجيت جي ثم كتاب وكل صومر بيني يسكون فشرة وهذا كور ردت كالحديثة وحلو ملينا يعني دماتي uu ka waray deegaanada hol beesha maxamuud garaad dhexdeeda iyo dhulbahantada tagaysa wax dhibaatay kama dhacayaan baanu idin leenahay waxba ma keeni kara baanu idin leenahay kama boodo baanu idin leenahay kuwa uu ku yiri been baa loo sheegay hadday ka goodo hal tago waa tanay waxba kama jiraan yaa lagu qaldami dadkana waxaan leenahay wax iska hor yimaado oo labada beelood ee walaalaha ma jiraan wax dhibaatay ma jiraan kii la yimid say ku kooban tahay waxaan leenahay arrintaana hal dejiyo dadkana sidii wanaag ahayd loogu shaqeeyo taana taas ayaanu ka walaynaa lamaanaan hadlin xiriir nooguma harin waxaanu ka wada hadlaynaa ma jirto annagu waxaanu qabsan doonaa hawlahayaga waxaan kaloo idin sheegaya haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay roob hayna siiyey dhulku waa abaar waxa aynu ku wada hadli doonaa oo isugu imaan doonaa deegaanadeennii wixii la tashiya iyo wixii wada hadala waxaan u sheegayaa dadka iyo ummadda iyo cid walba in wax walba ay ka wanaagsan yihiin in laysu yimaado la wada tashado wixii jira laga hadlo isku meel hadeertaba waxaa socda wada tashiyo badan horena way soo socdeen haddii dadku muddo badan kala maqnaa oo la kala dan la ahaa waxaan u malaynayaa hadda isku dan baa la noqonayaa
wixii jiraa laga wada hadlaya annagu si wanaagsan ayaanu maamulka aanu ka tirsanay ee Soomaaliland oo 16 sanadood ahayd aanu ula soo shaqaynay marka laga reebo xukuumadda hadda haysata wixii ka horeeyay tana wanaag baanu ku wada joognaa qasar maaha qofku inuu yiraahdo aniga xiriir gaar ah leeyma leh saasaaba wanaagsan laakiin mujtamaca wanaagsan iyo xukuumadda iyo dadka ayaa naga dhaxeeyay waxaan u maleynayaa oo aan halkan ugu hambalyeynaya shacabkii wanaagsanaa ee aan soo wada shaqaynay salaadiintii caaqiladii dadkii aad u wanaagsanaa gidigood waxaan u hayaa hambalyo waxaan u hayaa wanaag waxaan u hayaa jacayl aad ayaan ugu mahadinayaa saaxiibadeydii aan wada joognay magaalada waxa ka jirta waxa weeye warar badan baan soo gaaray dibadda iyo gudaba anagu 5 sanadood ee aanu dhulka joognay waxaan joognay deegaanka waxaa jira ceelal saliid ah sida naloo sheegay ama aan xanta ku maqlay waxa weeye ceelasha deegaanku marka laga yimaado dhulka hante ee hoos loo soo dhaco deegaanku wuxuu ku salaysan yahay deegaan Maxamuud Garaad waanu sameyn kareynay inaanu cid walba kala xiriirno ama cid walba aanu waxayna waxa weeye waa hawl marna u taala dadka deegaanka wixii la isla ogyahay odayaasha garaadada beesha oo garaadkii weynaa ee guud iyo kuwii kaleba ay joogaan caaqilada wax la tashi u baahan taasoo keenaysa marka si gaar ah la yiraahdo waxba hoos wax laga waxaynaya waxay keenaysaa isku dhac beelaha looma baahna wixii jira ee guud weyn laga wada tashadaa ilaa heer hoose ilaa heer maanta ilaa heerarkii ka sareeya taas ayaa jirtay taana hadda way yarada santay dadka si fiican baan ugu sheegnay cid tagtayna ma jirto waa hadii ay run ahayd waan ka raali gelinay haday been ahaydna waan ka raali gelinay waxa weeye wada weedeeno Cabdirasaaq dhowr arrimood ku jiray aniga markii lagu dagaalamay baan ahaa Somaliland way jirtay wanaha markaas wanaha wuxuu ahaa ninkii u ololeynayay ee lahaa ninka kan waa Somaliland ee kicinayay ummadda dadka beesha barkeeda oo dhan dhulbahanti ninkii kicinayay wasiirkii ugu horeeyay xagna wuxuu ka ahaa xukuumadda xisbigeeda hoose ugu qarsoona sida marka dambe soo bixi doonta markii uu hawsha sameeyay wuxuu iscadeeyay oo dadku ay aad ula yaabeen war ninkan miyaanu ahayn ninkii Cabdirashiid ku haystay waa Somaliland oo soo u ololeynaya kulmiye daceeb ma xisbi wallo ololeyn kara wuu iscadeeyay waxaan uu markaa u arkay inuu ninkan ku sameeyay laakiin haddana uu soo noqday dabadeedna wasiir baa laga dhigay dabadeedna waxa uu isku dayay muddo badan inuu ninka kan keeno isaga ayaa samaystay hawlaha ugu waaweyn oo keenay waxa weeye sida la sheegay wakaalad isaga hoos imaan jirtay meelka magaalada oo 7 mishiin ay yeelay 7 waa ay fadhiisteen inagala jirtay waxa kale oo loo keenay baa lagu yiri hawlaha holhol waxa kale oo loo keenay baa in la kala bedelo mas'uuliyiin siyaasadeed oo ahaa rag Soomaaliland la soo kafaxay waxa weeye waxaan u maleynayaa inaan ka soo sheekeeyay taacsiyaad dhixdii inuu ka qaaday dagaal aan hore dhaqan ahaan loogu aqoon kalsooni daraduna hadeer kuma aanay bilaabaneen mar hore ayay ku bilaabatay arrinta iyada waa groupkii iyagu dabada ka waday marka laga reebo Cabdirasaaq iyo xulufadiisa iyo walaalkii marka laga reebo waa groupkii dabada ka waday waxaan u maleynayaa in ay ku dhacday fuquuse qulaantoy annagana warar badan bay noo soo direen
وحوي ولا قاضي وحي بنت هاي اللودي ولا قاضي حلالي وحكى ترى أنا متران حضرته سيدا أي نوع شيء وحنا لو عضين دونا وقت الرود كده الشركة طلعنا بس تعسى بسوي مالس ها وحنتجي يا لاسعانات وحنتجي يا مقالوي كأردن وحنتجي يا ملك استورنا جحدنا waxaan ugu baaqaynaa oo aan u sheegaynaa daadeer haddaad hore u maqasheen khaynul wadan iyo qaran dubis baa iyo khaynul qaran haddaad maqli jirteen barta khaynul shacab baanu leenahay wax allaale wixii aad hawle aad nooga baahataan annaga diyaar idiin ah taas ayaanu leenahay waxaan kaloo ku soo gunaanadaya Somaliland wax badan baan soo wada shaqeynay in badan baan halkan soo wada galay waxaan ku kala tagaynaa nabadgelyo wanaagsan waxaan aad u salaamayaa saaxiibaday salaadiintii odayaashii dadkii dhalinyaradii asxaabtayadii kadib waxaan u sii diraynaa salaan waxa weeye wax kale meesha ma yaaliin wax badan oo baadeena lagu lahaa Cabdirashiid Garaad Ismaaciil ama Garaad Cabdirashiid Soomaalidiid anagu inaan cidnaba hadir diidanayn baan dadka u sheeganaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh